habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin weli dibadbaxyo ayaa ka socda Suudaan oo xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay kadib isxilaaddii ra'iisul wasaare Xamduug wixii u dambeeyay ee Suudaan iyo faahfaahin ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena waxa ka mid ah sanad kadib markii uu dhaboobay beec mushtarka xorta ee Afrika rajadii laga qabay in ganacsiga qaaradda uu fududaado ma la gaaray 24 saac la soo dhaafay kiisaska cusub ee COVID-19 waxay gaareen milyan Mareykankana waxa uu diiwaan geliyay caabuqyada ugu badan adduunka bani aadanka cagaha ma saari doona Maris koox cirmo-baalayaal ah ayaa soo bandhigay sida ay Iceland gacan uga geysan karto howlgalka lagu gaarayo meeraha cas kala socdo BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka aan ku bilaabano ciidanka amniga ee Khartoum waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa ku rideen dibadbaxayaal ka mudaharaadayay waxay ku tilmaameen afgambiga Suudaan dad goobjoogayaal waxay sheegeen in dadka isu soo baxay ay gubeen taayarada gawaarida ayna xayndaabyo ka samaysteen jidadka waxayna ku heesayeen militariga kama talinayo Suudaan waxayna dalbadeen in la kala diro golaha Suudaan ka taliya ee uu hogaamiyo General Abdul Fattah al-Burhani generaalkaas waa midkii hogaaminayay afgambigii ka dhanka ahaa dawladda rayidka isu soo baxyada cusub waxa ay ku soo aadeen xilli uu iscasilay ra'iisul wasaarihii dalka Abdallah Xamduug waxa ay dibadbaxyo kala ka dhaceen magaalooyin kale ay kamid yihiin Umdurmaan Port Sudan iyo Koonfurta Darfur haddaba waxa qadka magaalada Muqdisho hadda inoogu soo biray Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo arrimaha carabta ka faalooda si dhowna ula socday qalalaasaas ka taagan dalka Suudaan Cabdiraxmaan soo dhawow ugu horeyn xaaladda hadda ka taagan Suudaan waad la socotay marka ma tahay mid halis abuuri karta ama wadanka qatar gelin karta in runtii wad salaaman tahay Cusmaan adiga BBC dhamaan daawadayaasha BBC Somali runtii khatar weyn bay gelin kartaa waxaynu ka warhaynaa in hore heshiis loo galay 2020kii laakiin heshiiskii waxaad moodaa in lagu heshiin waayay imaka oo inqilaab kale uu dib u bilaabmay taas markaa mar haddii dhammaan awoodii oo dhani ay ciidankii u gashay mar haddii dhammaan waxa weeyaan siyaasiyiinta oo dhani aanay awoodii xukunka aanay ku wada jirin askarta mooyaane taasi waxa laga baqan karaa in askartu ay jihayn karto dalka oo taasna waa tii laga cararayay 2019 markii kacdoonku uu bilaabmay waa tii laga dagaalamayay laga mudaharaadayay marka waxa aynu arki karnaa imaka ceeryaan fuushay dhammaan mashhadka amba waaqaca siyaasadeed ee Suudaan ee soo socda watahay Cabdiraxmaan wixii u dambeeyay waa ra'iisul wasaarahaas oo iscasilay marka maxaa is leedahay way ku qasbeen inuu ka dago dhawaan ayaa la doortay ma jirto wax hadda si gaar ah oo public ama si guud loo sheegay waa tagay hal mar inkastoo culayska militariga la wada arkay runtii waxyaalaha ugu weyn la leeyahay waxa weeyaan mar askarta ayaa ku kalifay waa askarta markii ay inqilaabeen 25 Oktoobar sanadkii hore isla markaasina ay la heshiiyeen mar labaad November sanadkii hore ayna dhaafay intii dhowta tagay waxaad moodaysay inuu isagu isla harajaab muuqata ay askartii kugu soo celiyeen awoodii aad markii horeba aad kaga cabanaysay inay ka wada xayuubiyeen laakiin askartii waxaad moodaa inaanay ilaa iyo hadda awoodii aanay ku soo wada wareejin shacabkina kacdoon aad u xoog leh ayuu Suudaan oo dhan ka sameeyay marka labada arrimood ayaa ku kalifay inuu isiraahdo u banee kursiga si aan adiga lagu eersan taas aan ugu muhiimsan inuu iska casilo xilkii uu ka hayay Suudaan ee ah xil gaarsiinta ra'iisul wasaarnimada iyo golaha wasiirada waa tahay Cabdiraxmaan hadda ciidankii ayaa meesha ka taliya ra'iisul wasaarina waa iscasilay marka dadweynihiina weli waa mudaharaadayaan maxaa laga filan karaa inay dhacaan ama dibadbaxayaasha ma sii soconayaan ciidanka maxay sameynayaan runtii dhammaan dadka ka hadla arrimaha siyaasadda amaba Afrika amaba Suudaan si gaar ahaaneed laba arrimood ayuun bay ku soo noqonaysaa in Suudaaniyiinta inta aqoonta leh ay isu tagaan oo askartana lala heshiiyo isla markaasina la aasaaso dawlad kale oo xil gaarsiina isla markaasina gaarsiisa dawladda Suudaan iyo shacabka Suudaan ba doorasho
xor oo xalaala ama in ay ku noqoto waxa weeyaan dagaal iyo dagaalo sokeeye ay meesha ka dhacaan oo runtii taasna ay tahay waxa weeyaan maxay wax aad iyo aad u khatar ah oo Suudaan looga baqan karo inay waxa weeyaan dib ugu noqoto dagaaladii sokeeye ka socday Darfur oo kale inay dalka oo dhan wada saameyso oo dalku uu galo waxa weeyaan dagaal sokeeye. waa tahay cabdiraxmaan adoo soo koobaya wadamada carabta xiriirka la Suudaan iyo beesha caalamka gacan caynkay ay ka geysan karaan xaaladda hadda taagan. waxaad moodaa imika in awoodda la saaray inaanay Suudaan burburin durtaba wada hadal baa socda waxaanad moodaa in la doonayo horta in askarta lagu qanciyo in nin lagu wada kalsoon yahay oo aqoon-yahana in la keeno nin Ibraahim Badawi la yiraahdo ayaa imika la wadaa wasiirka maaliyadda hore u ahaan jiray ninkaasaad moodaa imika in siyaasiyiinta oo dhani ay aad u hadal hayaadii ninkaasi uu ogolaado inuu xilgaarsiinta ama ra'iisul wasaarnimada uu ogolaado isla markaasina siyaasiyiinta iyo mucaaradka iyo askartu ay ku kalsoonaadaan markaasoo kale xal baa la raadin karaa waana ta ay doonayaan dhammaan khaliijka iyo dowladaha reer galbeedku ay ku dagaalamayaan in ninkaasi uu hawada soo galo oo lagu heshiiyo. aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo arrimaha carabta ka faalooda. waa mahadsantahay cabdiraxmaan. markana aaga ganacsiga xorta Afrika waxa uu rumoobay 1 January sanadkii hore isaga oo wata rajo ah in uu fududeeyo ganacsiga qaaradda oo dhan. 41 dal oo u soo gudbiyay qorshahooda lagu dhimayo canshuuraha badeecadaha la soo dejiyo ayaa bilaabay in ay ku ganacsadaan xeerkan cusub. taasina waxa ay suuqa u furtay in ka badan 1.2 bilyan oo qof. tani waxa ay abuuri doontaa fursado ganacsi iyo shaqo guud ahaan qaaradda Afrika oo dhan ka dhacda iyadoo hoos u dhigi doonto qiimaha badeecadaha qaarkood. haddaba hal sano kadib rajadii ganacsiga xorta qaaradda ma heshay oo rajadaasi ma rumowday. waa kan aadan maxamed cabdisaalimiin oo soo jeediya. daahfurka ganacsiga xorta ee qaaradda BBC-du waxay la hadashay Mabel Simpson oo ah hal-abuure ganacsi fashion oo ku sugan Accra, Ghana. haddii aan u baahdo in aan shay u raro Mareykanka haddii aan soo raro shay 1 kiilo ah wuxuu noqonayaa $25 laakiin haddii aan u baahdo in aan isla shay aan geeyo Uganda waxa ay noqonaysaa $60. iyadoo ay alaabteeda ceeriin dibadda uga soo dhoofsan karto si sahla canshuuro badan oo ku saabsan ganacsiga xuduudaha waxay badeecadaha soo daaha ay ka dhigeen mid qaali ah oo lagu iibiyo meelo kale oo qaaradda ah. haddaba hal sano kadib waa sidee rajada laga qabo aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda u sahlaya inay ganacsi ka samayso gudaheeda. iibka iyo iibinta qaaradda runtii wax badan iskama bedelin. qiimaha ganacsiga ee qaaradda oo dhan weli waa isku mid, welina qiimaha raridda oo sareeya. qiimaha alaabooyinka ayaa kor u kacay sababtoo ah caqabadaha haysta isku xirka sahayda caalamiga ah ee ka dhigay qiimaha mid aan deganayn. marka qiimaha wax soo saarku wuu kacay halkii uu hoos u dhici lahaa. ganacsiga gudaha ee Afrika waxa uu hadda marayaa 14.4% wadarta guud ee wax soo saarka Afrika. tanna waxaa inta badan sabab u ah xanibaadaha ku yimid isku xirka saadka ee la xiriira COVID-19. tusaale ahaan Kenya waa wadan dhoofiya ubaxa laakiin Nigeria waxay ubaxa ka soo dhoofsataa Netherland. sidoo kale saliidda timirta ee Kenya waxay u badan tahay inay ka timaado Malaysia halkii ay ka keensan lahayd Nigeria. fikradda ka dambaysa aagga ganacsiga xorta ah ayaa ah in lagu arko ubaxa Kenya wadooyinka Lagos iyo saliidda timirta ee Nigeria oo lagu iibinayo Nairobi. laakiin xaggee ayay arrintaasi maraysaa? waxay ahayd inaan marka hore dhammaystirno waxaana ugu muhiimsanaa xeerkii asalka ahaa. waxay ahayd inaan dhammayno gorgortanka xeerka asalka ah. ilaa hadda waxaan gaarnay 80% taas oo ah mid aad u wanaagsan. waana inaan ku dhammayno rubuca koowaad ee sanadka 2022. haddii si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiska ganacsiga xorta ah waxa uu yarayn doonaa dhammaan qarashaadka ganacsiga waxaana uu isku dari doonaa suuqyada sahayda Afrika wuxuuna meesha ka saarayaa 90% canshuurta iyo fududaynta nidaamka kastamka. wadamo dhowr ah ayaa inta badan ka ganacsada badeecadaha qaaradda dhexdeeda. hase yeeshee markaad eegto tirooyinka ganacsiga gudaha Afrika qaaraddu waxay ka dhex ganacsataa badeecadaha la soo saaro. marka tiro dalal ah ayaa caqabado la kulma marka ay timaado baaxadda. waa in wax laga qabtaa caqabadaha aan canshuurta ahayn.
bal markana aynu eegno qodobada kale ku jira wararkeena caawa. wasaaradda arrimaha gudaha Tunisia waxay sheegtay inay xireen wasiirkii hore ee cadaaladda oo looga shakiyay argagixisanimo Nuruddin Bahari waxa la xiray dhamaadkii toddobaadka. xisbiga Al-Nahda waxa uu khilaaf kala dhaxeeya waa xisbigiisa madaxweyne Qays Saacad kadib markii uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha una shaqada baarlamaanka joojiyay sanadkii hore. xaaska wasiirka la xiray waxay sheegtay in loo diiday in ay la xiriirto haddana uu isaga cuntada ka soomay. isbahaysiga uu horkacayo Mareykanka ee Ciraaq waxay sheegeen in laba diyaaradaha droniska oo walxaaq qarxa laga soo buuxiyay lagu soo riday meel u dhow saldhig military oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka. afayeen ayaa sheegay in difaaca Ciraaq uu burburiyay droniska markii ay ku soo dhawaadeen saldhigga oo ku yaala galbeedka Baghdad. weerar kale oo ka la mid ah isna waa laga hortagay oo ka dhacay meel u dhow garoonka caalamiga diyaaradaha Baghdad maalintii Isniinta. Iran waxay xusaysaa sanad guradii labaad ee weerarkii droniska Mareykanka ee lagu qaarijiyay General Qasim Suleimani. shirkadda gawaarida samaysa ee Tesla waxa lagu dhaliilay inay ka furatay carwo gobolka Xinjiang ee Shiinaha halkaasi oo dawladda Beijing lagu eedeeyay inay ka geysatay adoonsi iyo xasuuq ka dhana qowmiyadda Uyghuriska. carwada ayaa la furay habeenkii sanadka cusub. madaxweyne Bidenna waxa uu dhawaan saxiixay xeer mamnuucaya waxyaabaha laga soo dhoofiyo Xinjiang ee shaqaalaha la qasbay ay sameeyeen. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter Instagram iyo YouTube ka oo hadda toos nooga daawanaysaan. waxa inoo soo socda qaybta dambe idinkugu haynaa bani aadanka cagaha ma saari doona Maris koox cilmi baarayaal ah ayaa halkaas u safraysa. caawa iyo caalamka ayaad weli daawanaysaan anigoo Cusmaanna waa idinla socodsiinaya in xusuusiyo qodobada ugu waaweyn. weli dibadbaxyo waxay ka socdaan Suudaan oo xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay kadib iscasilaadii ra'iisul wasaare Xamduug. sanad kadib
markii uu dhaboobay mushtarka xorta ee Afrika qubaradu waxa ay sheegayaan in rajadii laga qabay in ganacsiga qaaradda uu fududaado aanay weli fari ka qodnayn markana viruska corona madaxweynaha waddanka Mozambique Philip Nyusi iyo marwada koowaad ee dalka Isuri Nyusi ayaa covid laga helay waxa ayna galeen karantiil waxayna astaama kama muuqdaan balse waxaa la baaray kadib markii ay hawla ay sameeyeen maalmihii la soo dhaafay kiisaska virus corona waa ay kordheen dhawaan Mozambique waxaa laga diiwaangeliyay in ka badan 193,000 oo kiis oo covid ah 2,031 way dhinteen waxaana bogsaday 158,680 qof Mareykanka kiisasku waa ay kordheen halkaasi waxaana la diiwaan geliyay 1 milyan oo kiis 24 saac la soo dhaafay waa tiradii ugu badnayd ee maalin laga diiwaan geliyay ku dhawaad laba laabkii toddobaadkii hore waa dhowr maalmood ka hor sidii ay ahayd la taliyaha ugu sarreeya caafimaadka dawladda Anthony Fauci waxa uu sheegay in tirada isbitaalada la dhigay ay sawir fiican ka bixin karaan saameynta aafada marka la barbar dhigo tan caabuqyada wararka idaacadaha waxa ay muujinayaan in 1 milyan in ka badan isbitaalada Mareykanka loo dhigay COVID-19 hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay dejisay jadwal ah in bisha July 70% dadka adduunka la talaalayo Dr. Maria von Kerkhove oo ku takhasustay cudurrada faafa waxay sheegaysaa in wadamada iyo warshadahaba ay dardargeliyaan sameynta talaalka taasi waxay suurtagelaysaa marka la fiiriyo awood wax soo saarka laakiin waxay dhici kartaa haddii dalalku ogolaadaan oo ay shirkaduhuna ogolaadaan in wadamada ay iibsadaan kuurooyinkaas ma awoodno hab aan uga gudubno cudurkan waxaan u baahannahay inaan kordhino talaalka dadka ugu khatarta badan dal kasta dhinaca kale magaalada Yuzhou ee dalka Shiinaha xayiraad ayaa lagu soo rogay kadib markii 3 kiis laga helay halkaasi in ka badan 1 milyan oo qof ayaa la sheegay in ay guryahooda joogaan iyada oo magaalada oo dhan la baarayo magaalada Xinjiang 2 maalmood oo xayiraad ayaa la geliyay qof kastana waa inuu guriga jooga markii shanaad ayaana dadweynaha la baaraya kiisaska COVID-19 hoos ayay hadda u dhaceen waa kan wariyaha BBC-da Robin Bryan oo noo sharaxa xaaladii u dambeysay tani waa dhacdadii ugu dambaysay ee dadaalka weyn ee Shiinaha uu ku doonayo sii wadida waxa ay ugu yeereen istiraatiijiyada ciribtirka COVID iyadoo ciyaaraha Olombikadu ay soo dhawaadeen ciyaaraha xilliga qaboobaha ee Beijing ayaa toddobaadii naga xigaan dabcan dadka badan ee imaanaya waxaan u naqaanaa dabaaldegyada guga adduunka intiisa kalena waxa ay u yaqaanaan sanadka cusub ee Shiinaha marka 100 milyan oo dad ah ayaa lagu wadaa inay u kala safraan dalka waa labada dhacdo ee muhiimka ah ee ay ka walwalsan yihiin Iceland juqraafi ahaan halka ay dunida kaga taalo waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraysaa saameynta hawada sare maadaama ay aad ugu eg tahay una kulushahay sida oogada dayaxa Mars koox cilmi baarayaal ah oo ka socda wakaaladda hawada sare ee Iceland ayaa waxay u safreen dhulka uga fog dalkaasi si ay u tijaabiyaan sida dadka ula qabsan karaan dusha sare ee meerayaasha kale gaar ahaan Mars waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo faahfaahiya muuqaaladan aad arkaysaan waa meeraha Mars weli sidanoo kale umaynu arag gaadhiga robotka ah iyo helikobtarta yar ee la socota iyaduna ayaa halkaasi inooga soo gudbinaya muuqaallo dhan walba ah oo aanaynu hore u arag oo ka imanaya meeraha cas laakiin sidee baynu ugu diyaargaroobi karraa inaynu meerayaashaasi kale u hayaanno oo tallaabo kale uu bani'aadamku u qaado bal aynu marka hore tallaabo yar qaadno oo aynu u baqoollo dhankaas iyo Iceland dalkan meel la midii ma jirto oo indhaha weli lama saarin waa dhul qarfo dhagxoole iyo fulkaanig iyo weliba baraf isku darsaday haddaynu si kale u dhignana waa sida Marsba iyo dayaxyada iyo Tiiraan iyo Yuruba amaba caalamyada kale ee aynu ka degi karno taasina waa keentay in xagaagii ay isu yimaadaan oo Iceland isugu yimaadaan cilmi baarayaal doonaya inay wax ogaadaan oo ku labistay dhar kaas oo ah dhar tijaabo ah oo loogu talagalay in lagu xidhan karo goobaha hawada ka baxsan ee mustaqbalka loo hayaamayo The suits have a lot of restrictions in terms of how your body can move.
daraysyadani waxay leeyihiin waxyaabo badan oo xakamaynaya sidaad u dhaqaaqi karaysid iyo waxyaabo farahagu dareemi karana ama aad isticmaali karayso marka aad qalabka isticmaalayso ee aad hawsha ku qabanayso marka haddii aanad xirnayn daraysadani waxyaabaha qaar hor joogsanaya ma ogaan kartid sida ay u xallin karayso howlaha qaar mana ka shaqayn kartid dayaxa iyo maariska saynisyahanada ayaa ugu yeela meelaha u eg meerayaasha kale analogs daniel liib iyo ganar gundesanson ayaa isku dayaya inay suuq geeyaan iceland si ay u noqoto meel lagu sameeyo cilmi baadhisyaha noocana waxaanay sameeyeen hay-ad ka kooban 2 qof oo la yidhaahdo wakaaladda hawada sare ee Iceland. Iceland has some of the most diverse set of terrestrial analogs in close proximity to one another that exist anywhere. Iceland waxay leedahay waxyaabo badan oo ay meerayaasha kale ugu eg tahay oo aan meel kale lagu arag. Sanadkii 1965 ilaa 67 cirbixiyaanadii Apollo waxay yimaadeen halkan Iceland waayo waxay u haysteen dhulkan ku yeel meesha waqooyiga ka xigta Fanchankul Galezaar oo ku dhow Falkana Ashka inay tahay meel aad ugu eg goobta ay dayaxu ku degaan mararkii ay dayaxa ka degeenna waxay yiraahdeen meeshan waaba Iceland oo kale hawada Mars waa hawo sumaysan oo isla markaasina ay sunta ku badan tahay waxaana jirta in ay dharkaaga jarjari karto markaad xidhan tahay qalabkaagaba mana laha birlab wax soo jiidanaysa markaas waxyaabahaas birlabta dadka waxay ka ilaaliyaan shucaaca hawada sare marka la joogo dooxyada ay ka rogmadaan dhagxaanta kulul ee fulkaanuhu waxaa halkaasi ka dhaca inay samaysmaan meel ay maraan dhagxaantaasi oo ay isugu ururaan halkaasi oo ay kaga tegayaan inta sare inay noqoto in qabowday oo dhagax noqota oo halkaasi awda dhul badan oo bannaana waxaynu ognahay in dhulka ama sagaxadda Mars ay tahay dhul falkaana waana xaqiiq in falkaanaha ugu weyn nidaamka cadceedda inuu ugu weyn yahay Olympus Mons isagoo leh falkaano ka soo mudbaxaya atmosferka Mars dhulka ballaaran ee ku xeeran falkaanahana waxaa ka soo baxa dooxooyin dabka qulqulayo dhanka kalena Daniel waxa uu jecel yahay inuu ina tuso meel kale oo dhul Mars u eg oo halkaasi ku taalla Iceland waa meel dhowr saacadood gaadhi aan u wadanay oo ah dhul qarfa oo adag baraf hoostii ayaanu marray oo ah meel xaaladdeedu adag tahay oo lagu gaban karo markaad eegto dooxooyinka uu maro dabka fulkaanaha ee aynu hore u marnay waxaad arkaysaa inay yihiin goobo la degi karo iminka meeshan aynu joognaa ee meeraha u eegna waa baraf god la gelayo oo cimiladu adag tahay biyo fadhiya oo dhagaxooba in la hela waa muhiim markaad eegto muddada dheer marka meerayaasha la tegayo barafka ayaynu biyo ka dhigayn iyadoo haydrojiinta loo rigi karo shidaal gaastana loo isticmaalo oksijiinta in lagu neefsado biyahana dabcan in la cabo iyo in wax lagu beero halkani aad iyo aad bay qurux badan tahay inkastoy qoyan tahay qabowdahay kulana siibanayso ilays cajiiba ayaa ka baxaya waxaana leedahay gaadhiga barafka ku dul mushaaxaya ee hoteelkaaga dib kuuga celinaya noloshani maaha nolosha nin dhul cusub daah furaya markana wararkana ciyaaraha ee caawa
shalay iyo horyaalka ingiriiska habeen wacan ayay u ahayd Wolves kadib markii Manchester United ay Old Trafford kaga badiyeen markii ugu horeysay ilaa iyo 1980kii goolkii Moutinho iyo goolhaya Jose kii uu badbaadiyay ayay Wolves xalay waxay ku heleen guushii halkaasi ay kala hoydeen guuldarrada Man U waxa ay geysay in ay booska toddobaad ka galaan horyaalka 22 dhibcood ayayna ka dambeeyaan Man City oo hoggaanka haysa Wolvesna dhibco ayay heleen oo Man U ay ku xigsadeen oo booska sideed ay hadda soo galeen taageerayaasha Barcelona waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen Ferran Torres kadib markii uu yimid shalay garoonka naadiga ka hor inta aysan bilaaban tababarka ciyaartooygan reer Spain waxa uu kaga yimid Manchester City balse waxa jira caqabado la xiriira in aysan ku dari karin xulka safanaya ilaa inta ay ka dhimayaan qarashaadkooda la xiriira mushaaraadka waxaana la filayaa in isla waqti ay ku dhameeyaan arrintaasi oo ka hor inta aysan dhicin toddobaadka dambe ciyaarta iyaga iyo Real Madrid ugu dambeyntiina caawa waxaan idin haynaa sheeko xiiso leh barafka dad badan lacag ayay ku bixiyaan si ay qabow u helaan waa dadka meelaha kula joogana kuwa halkan aad uga jeedaanna waaba u dheeldheel meelaha barafka uu ka da'ayo hal mar ama laba jeer ayay dadku ku cayaaraan oo isku tuturaan balse Mareykanka mid ka duwan ayaa la arkay Washington dad badan ayaaba ku dagaalamay barafka iyadoo shalay uu qabow meel daran gaaray kaasoo xitaa qasbay diyaaradii Air Force One ee madaxweyne Biden in la hakiyo oo ay xoogaa uu sugo uusan soo degin xusna wararka ugu dambeeya BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaasaan kusoo gabagabaynaynaa nabadgelyo